dhaqdhaqaaq yarida oo noqotay dilaaga cusub. Kusoo dhawo muuqaal cusub haddii ay tahay markii kugu horreysay channelka, subscribe saar si aad ula socoto wax walba channelkan soo gelin. khubarada dhinaca caafimaadka ayaa walaac ka muujiyay in wax aad u yar laga qabtay sidii loo yareyn lahaa saameynta ka dhalata dhaqdhaqaaq la'aanta ama jimicsiga ku yar dadka ku nool caalamka. Warbixin ay soo saartay hay'adda caafimaadka ee adduunka WHO ayaa lagu qiyaasay in 4 meelood hal meel oo ka mid ah dadka dunida oo ah tiro dhan 1.4 bilyan oo ruux aysan sameynin jimicsi ku filan. Tiradan ayaa sare u sii kacaysay tan iyo sanadkii 2001. qiyaastan ayaa ka dhigan in guud ahaan dadka caalamka 4 qofba mid ka mid ah uu ku jiro halis dhimasho. Dhaqdhaqaaq la'aanta ayaa sababta in dadku ay soo wajahaan xaalad caafimaad darro sida inay qofka ku dhacaan cudurrada wadnaha, sokorowga iyo noocyo ka mid ah cudurrada kansarka. Dalalka uu soo gala dhaqaalaha badan oo ka mid yahay Ingiriiska ayay dadkoodu yihiin kuwa ugu badan ee dhaqdhaqaaq aan sameynin. Sidoo kale haweenka caalamka oo idil ayaa loo aqoonsaday inay yihiin kuwa ka jimicsiya ragga. cilmi baarayaasha hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku saleysay xog laga ururiyay ilaa 168 wadan oo dadkoodu si shakhsi ahaan uga warrameen xaaladahooda. Khubarada ayaa ogaaday in wadamada dhaqaalahoodu sareeyo sida Ingiriiska, Mareykanka ay shacabkoodu khatar badan ugu jiraan saameynta ba'an ee ka dhalata dhaqdhaqaaq la'aanta. wadamada kale ee safka hore ugu jiray jimicsiga la'aanta waxaa ka mid ah Jarmalka iyo New Zealand. WHO ayaa sheegtay in jimicsi la'aanta ay hadda noqotay dilaaga cusub ee bini'aadanka maadaama ay dad fara badan ka dhaxlaan cudurro aan la daweyn karin. Waxa ay sidoo kale saameyn ballaaran ku yeelatay waqtiga uu qofku noolaan karo, waxaana la sheegayaa inay keenayso cimri degdeg aad u heer sareeya. haweenka ayaa si guud ugu dhaqdhaqaaqaya ragga marka loo eego dhammaan dalalka laga sameeyay daraasadan. hase ahaatee dalalka ku yaal bariga iyo koonfurta bari qaaradda Aasiya ayaa si weyn uga duwan dhanka dhaqdhaqaaqana ugu fiican wadamo kale oo ku yaal koonfurta Aasiya, bartamaha Aasiya, bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika. talooyin jimicsi oo loogu talagalay dadka da'doodu ay u dhaxayso 19 ilaa 64 sano jir. isbuuci samee ugu yaraan 150 daqiiqo oo jimicsi fudud ama 75 daqiiqo oo jimicsi culus ah. samee jimicsi xoog leh oo qaata 2 maalmood ama ka badan. iska jooji fadhiga badan, beddelkiisana geli dhaqdhaqaaq sahlan. waa maxay jimicsiga fudud? socodka oo la boobsiiyo, dabaasha iyo in baaskiilka lagu kaxeeyo dhul siman, ciyaarta tenniska, buurfuulitaanka, kubadda kolayga iyo noocyada kale ee ciyaaraha fudud. maxaa ka mid ah jimicsiga culus? ruucleynta ama orodka, dabaasha degdega ah iyo in baaskiilka loo kaxeeyo si xawaare leh, tenniska oo halka ruux dheela, kubadda cagta, kubadda rugby-ga, noocyada kale ee ciyaaraha adag. dalalka dhaqdhaqaaq la'aanta heerka ugu sarreeya ka joogta ayaa kala ah Kuwait 67%, Sacuudi 53%, Ciraaq 52%. dalalka ugu hooseeya dhaqdhaqaaqooda uusan heer xun joogin waxaa ka mid ah Uganda iyo Mozambique oo labaduba ka siman percentage-ka oo ah 6%. khubarada ayaa dowladaha dalkaasi ku booriyay inay dadaalo u sameeyaan sidii halista wax looga qaban lahaa. muuqaalkan maanta intaas ku eg yahay. fadlan haddii aad tahay markii kugu horreysay aad aragto muuqaalkan waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarto. sidaas iyo muuqaal dambe oo xiiso leh.